Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan wada salaamay asxaabta ku xiran channelkeena. Salaan maanta cashirkeena waxaa ku saabsan yahay IP address. IP address ka waa marka joogo qaybta networking-ka. Marka qofka rabo inuu network engineer noqdo waa qaybta ugu muhiimsan ee la rabo inuu fahmo IP address-ka ee barbilowgana u ah. Haddaba sidaan halkan niigu soo diyaariyey oo waxoogaa yaroo hordhac u ah IP address-ka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo muxuu haydeniyey qaybaha uu kala baxo iyo sida loo isticmaalo binary ahaan oo decimal ahaan iyo qaabka uu IP address u shaqeeyo. Haddaba IP address wuxuu muhiim u yahay qofku markuu network engineer yahay inuu kala garto IP address ma class K ba class A or class B or class C iyo ma public ba private ba yacni IP address iyo sida loo isticmaalo iyo sida muxuu haydeniyey IP address-ka public iyo private loo kala isticmaalo iyo sida uu IP address-ku u shaqeeyo inuu qofku fahmo. Haddaba halkan waxaan ku qaadan doonaa classes-ka IP address-ka loo qaybiyo iyo types-kiisa. Haddaba IP address-ka aan halkan ku qaadan doono IP address horta structure-kiisa horta design-kiisa waa 8 binary ka kooban yahay oo decimal numbers ah. oo IP address-ka muxuu haydeniyey version 4-ka IP address-ka marka laba loo qaybiyo version 4 iyo version 6. halka dambe ku arki doonaa IP address-ka version 4-ka iyo IP address-ka version 6-ka yacni say u shaqeeyaan. Horta IP address kelmadda IP waxa loo soo gaabiyo waa internet protocol way. Address-na raacsan tahay waa internet protocol address. yacni waa internet protocol address baa la soo gaabiyo IP address-ka. waa numerical number way. waa number yaro assigned la siinayo each device kasta oo kamid yahay printer-ka muxuu haydeniyey computer-iska muxuu haydeniyey kuwii waaweynaa isticmaalaya shirkadu switch-kii router-iskii waxyaabaha oo dhan ayaa loo yaqaanaa waa numerical number to assigned each devices ayaa loo yaqaanaa IP address la siinayo. Haddaba IP address-ku waxa uu inoo sameeyaa participation of computer networks that use internet protocol for communication. yacni in waxyaabaha qalabyada oo dhan la soo wada siiyay IP address-ka inay si fudud ku gaari karaan internet-ka iyagoo IP address-ka isticmaalaya. Haddaba IP address-ku wuxuu kala leeyahay decimal and binary. decimal iyo binary yacni si loo soo kala saaro. yacni midda halkan dusha sare aad ku aragto waa isagoo decimal ah. عفوا midda isagoo halkan sare aad ku aragto binary address-ka weeye oo waxa uu ka kooban yahay waa 8 digit weeye 8 digit weeye oo 172 halkan 172.168.4.2.2.20 oo class B ah. haddii la rabo in lagu soo saaro muxuu haydeniyey binary ahaan yacni saas u noqonaya oo 8 digit-kaas waxay kala noqonayaan midka ugu horeeya 1-ka hadda kaas wuxuu u taagan yahay 128 way. middan ku xigta ama halkaadina haddaan kasoo bilaabin si fiican loogu fahmo halkan 0-gaas waa 1 buu u taagan yahay 8 digit marka la joogo waa 1 halkan waa 2 waa 4 waa 8 waa 16 waa 32 waa 64 waa 28 waa 128 saasuu markaa u saaray 172 marka inaa lasoo saaro la rabo markaa maxaad kasoo saaraysaa binary ahaan 128-kaas oo loo geeyey muxuu ahaye 32-ga oo loo geeyey saas markay sugayso 172 way noqonaysaa. halkan 16 soo maha godka 16 la siinaya waa godkaa dhexda kaliya haatide oo 8 iyo 8 marka la isku geeyo 16 ah. 4-na maxayna siinaya waa kan halkan 1 2 marka ka koobaad 1 marka laga yimaado kana 2 la yimaado isaga 4 ah. 20 maxayna siinaya 4-kii oo lagu daray 6 marka saas 4-kii oo lagu daray waxaan jeedaa 16 sidaasay markaa ku soo baxaya binary u kala shaqeeyo. example ahaan kan oo kale 192.168.1.1 baan haysanaa. hadda 192 maxayna siin kara marka binary ahaan la joogo 128-kii oo godkii ugu horeeya ona ah iyo kii ku xigo oo 64 ah marka la isku geeyo waa 192 way. 168 waxayna siin karaa godkii ugu horeeyay oo ah muxuu haydeniyey 128 godkii ku xigo 64 kii damsan godkii ku xigo 64 kii damsan iyo godka ku xigo 32
godka ku xigo isna 16 ka damsan iyo godka 8ka kaasayna siin kara 1 to 8 kana siinaya 1 maxayna siin kara waa codka ugu dambeeya 1 kaasa 1 na siin kara kana 1 kaasa kalena siin kara haddaba IP address waxaa loo kala qaybiyaa two type baa loo qaybiyaa two typekaas waa mid IP version 4 oo 32 bit buu ka kooban yahay midna waa IP version 6 oo ka kooban 128 bit buu ka kooban yahay oo markaa inaga ahaan inagu waxaan isticmaalnaa IP version 4 IP version 6 waxaa isticmaala shirkadaha waaweyn yacni sida imika wadamada ay isticmaalo kale India or China wadamada dadka badan la deeyay ayaa isticmaala 128ka shirkadaha iyo waxyaabaha iska normalka waxay isticmaalaan IP version 4 haddaba IP-ga public iyo waxay kala leeyihiin private IP addressadu midka public haddaba IP addresska public waxa loo yaqaana midka aan inagu ahaan like aan booqano kale sida google.com amazon.com sidee kalba meesha aad booqanayso kale imika facebook.com waxyaabaha kale waa public IP address yacni tusaale ahaan iyagu public way private haddaba maxaa noqon kara private waxaa noqon kara kuwii yacni loo sameeyey muxuu ahaydeeniyey local area network iyo kale sida muxuu ahaydeeniyey organizationada oo kale xageen officeska xafiisyada kale campuseska jaamacadaha iyo campusyada kale university jaamacadina loo sameeyo capital hospitals inaa hospital loo sameeyo local area network marka loo xidhay iyagu IP address public ma noqonayo internetka soo sameeyayaan waxa loo xidhayaa IP address private haddaba IP addresska classeskiisa loo kala qaybiyo public private kiisu imika class 2 class B loo jeeda marka la joogo IP addresska 172 marka la joogo .16 labada gud markay saas yihiin wixii ka hooseeya 35 waxyaabo dhani wixii 35 ka sare waa public bay raacsan private marka la joogo muxuu haydeeniyay class 2ga halkan 172.16.30 ilaa 1 markii laga gaadho waxaas oo dhan waa u private way class 1 waa 10 baa u private isna class 3 na 192.168.11 baa isna private ah haddaba classeska loo kala qaybiyo IP addresska class A marka la joogo waa 1 buu ka bilaabmaa ilaa iyo 126 ayuu gaadhaa subnet mask ahaan marka loo xisaabinayo qaybta network ugu horeysa ayuunbaa u ah on inta kalena waa off way marka class B la joogo wuxuu sameynayaa 128 wuxuu ka bilaabmaa 126 waxa ugu dhamaa 127 waxaa looga boodayaa yacni si ay networkkaasi ugu kala qalin 128 bukaasi kana ka bilaabmaya 191 buu ku joogaa oo isaga labada network ugu horeeya on ah labadan ku xigeenaysna waa off class C marka la joogo class C isna wuxuu ka bilaabmaa 192 ilaa laga gaarayo 123 oo isna ka bilaabmaysa maaskiisu yahay .255.255.255.0 oo isagu wuxuu qaataa muxuu ahaydeen 24 bit networkkaasi ayuu qaataa class D baa daba jiray class D isna wuxuu ka bilaabmaa 124 ilaa iyo 139 ayuu gaadhaa iyo class E iyo kale imika wuxuu waa 240 ilaa 255 saasoo kale noqonaya class A summon maaskiisa haddaba marka hosting network la joogo class A marka la joogo halka network ugu horeeya ona inta kale waa host unbaa halka network midka ugu horeeya unbaa network saddexda kale waa host class B marka la joogo labada ugu horeeya network labada kalena waa host class C marka la joogo saddexda ugu horeysa ayaa ah network midka ugu dambeeyana waa host way assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta cashirka intaasaan ku joojin doonaa haddii la yidhaaho halkaasaan kasii baqaadi doonaa haddii la yidhaaho